بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا روح هذا رمضان كريم dadka islaamka meel kasta joogaanba ilaahay inaga amalkeena iyo salaadeena iyo taraawiixdeena iyo soonka ilaahay inaga aqbalo. Walaal maanta si aan hore ku sheegnay waa inaan mar kastaba xaaladda dalka shacbiga reer Soomaaliland la wadaagnaa weey. Maanta waxa weeye waxaan ka xumahay in haddana geeri dambe dhacday oo dad walaalo Soomaali la isku diray dalka lagu soo duulay ee ku dhinteen. Marka waxaan leeyahay dadkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka dhintay dambigoodu wuxuu saaran yahay dadkii dabka horiyay ay saaray iyo aakhir. waxaan markaas la boorinayaa ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliland oo dagaalkan dambe ee shalay dhacay bishii koodeedii waxaan u bixiyay afguriye waa lagu qoosanayaa. walaalay wax ogtiin dagaalku maanta wuu cadaatay si toos waxa ugu jira maamulka Majeerteeniya ee Maxamed Saleebaan iyo gruubkii G21 ee ugu jira. waad ogtiin dadka la qabtay iyo baabuurta la qabtay xitaa waxa ku jira ciidankii BSF ee Diana oo maamuliyay. hadda wixii ka dambeeya waxaan leeyahay shacbiga reer Soomaaliland dagaalku wuxuu ka dhaxeeyaa waa inaga iyo maamulka Majeerteeniya. dagaalkan lagu soo qaaday Laascaanood martamo kale lagu soo qaadin gobolka Sool iyo xitaa bariga Sool joojiya afka leediin dagaalka ka socdo Sool dagaal Sool kama socdo Laascaanood buu ka socdaa afka barta. dagaalkan ka socda maanta Laascaanood wuxuu inagu sameeyay waxa weeye wake up call wina baraaruji Soomaaliland qora kuma jiree warshuhu waxa la fashilinaana maamulka Xamar Xasan Sheekh wala faafinaya maadaama ay reer Garowe ra'iisul wasaarihii Soomaaliya ee xaqdarada ilaa 60 ku qaadeen ay waayeen waxa ka go'an in la fashiliyo Xasan Sheekh taa ogaado reer Muqdisho taa ogaado. Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Djibouti waa saddex wadan oo Soomaali ku nooshahay oo 60 calanka kala qaatay. waxa yaab leh waxa Soomaaliland dusha ka saaray Soomaaliya iyo gruubkaas dalkii calanka qaatay ee Soomaali ugu horeeyay ee Soomaalinimadu ka dhamaatay ee Soomaalinimada abuuray wakaasoo carwakaas maanta waxa ka socota bad ogteen gobolka City ee Soomaalidii deegaanada laga xasuuqayo bacalkaas Soomaali ha kacdo taas halka Soomaali ka kici jirtay Hargeysa ee Soomaali ku waalatay ee calankeedii bila shuruud u dhiibtay. iyana waa diyaarka maanta nolosheedii loo diidiyo nabadgelyo loo diidiyo waana gruub qura oo kansar ku noqday Soomaali ayaa waxa wada. arintan ka dhacday Laascaanood waxa ahayd 5 sano ee Muuse hayay oo crisis dhibaato baaban ka dhacday crisis oo abuuriyay oo ku soo biyo duulimaadka lagu soo qaaday Laascaanood ee laga hortagiyo ixtiraafka Soomaaliland nabadgelyadeeda baraaraheeda soo baxay ee shidaalka iyo macdanta ba laga hortagiyo. waxaan leenahay shacbiga reer Soomaaliland Muuse uu ku qasban yahay inuu qabto doorashadii shalay uu soo saaray wareeg soo saaray statement soo saaray leeyahay commissionka ha qabto. commissioner uu sheegay 9 bilood ayaan ku qabanaa doorashadii tan teebulkan waan haynaa lacagtina uu soo sheegay. marka waxaan leeyahay
ku qasban yahay muuse inuu doorasho madaxweynaha qabto hadduu qaban waayna waa la impeach gareynaya amba waa la impeach gareyn doona amba shir qaran oo kii cabdiraxmaan oo kale ah ayaa la sameyn doona la kala tashan doona marka ayaanu waqtiga dadkeena iyo ciidamada waxa leeyahay muranka muuse ee doorashooyinka yaanu ina kala jeedin oo inaga jeedin bigger picture-ka weyn hawsha weyn ee inoo taala ee daaficada qaranka hadana anaga xisbiga cudig daryeelka iyo cadaaladda waxaanu garab taaganahay ciidanka Soomaaliland waxaan leenahay noolaada ilaahay waalidka gardaran yahay waxaan leeyahay warqadii soo saaray Mareykanku xuskan dhitaray waxa muuqata in narrative-kii magaranaysa xulufada beenta adduunka la mariyeen ayay ka rumaystay laakiin la saanood baad sheegaysaa taaka dalka Soomaaliland ka biximayno dagaalkana maanta wuxuu noqonayaa sidaan hore u sheegay ilaa garowe la soconaya insha Allah taala ilaa garowe waa inaan ka dhigna qorsheena aan iska soo afjarnaa dandaasiga beeshaas ilaa xaafoon ilaa qardho ilaa boosaas ka soo gurmatay jilib u socota Soomaalidu ha kala fikrad ka duwanaatay waxayna hadan dad in badan meel badan iska xiran siyaasadda ku difnaadeen walaalnimo xididnimo ehelnimo saaxiibnimo maanta dagaalkani calool xumo weyn ayuu nageliyay cadaawada la noo qabo israa'iga ah ilaa waa lagu gaalata waa lagu janatagiya calool xumo nagelisa laakiin waxaan hay dad niyad wanaagsan qalbi wanaagsan xumaanta waa dadka waanu saamaxnaa والعافين على الناس إلهي سبحانه وتعالى حسوقي بكون نوسمي وكوا مانتا أدونك ميرا سنية وطن كنا لتاس وحن شاء الله أنا كهدلو نكلا مقعاوي هو مقعاوي حسن شيخ وهذا السومالي دي الصومالي عبد الكريم حسين قوليد وانا آدي آدو صاحبنا هاي إلا مركي محكمة لها أيام نكابد حجوج ما قد دموا حن سكوني مقول هذا الصومالي وأنا قيمة له سومالي أنا رؤيمي سكولة هرجع كسر قريب كلها واحد بدن أو أنه يشيس كهين ولا هذا إن رجعنا حسن شيخ دولة دي سي يا شيخ شريف أو مركي ويمي فرماشو لبابية كمل أيام دونك ولا الله marka intaan horta wada hadalay ma sii wadnaa iyo ma bilowna waxa fiican in horta wixii hore inuu ku heshiinay iyo wax inuu hadda wada qabsan karno aynu ka hagaaji ka wada hadalo oo inuu ka dhigna jawi de wada hadal ku wada iman karaan insha Allah taala anagu hadaan udahanay waan ka tashan doonaa insha Allah taala inuu sii wadna Soomaaliya wada hadaladeeda laakiin waxaan insha Allah inta hore inaynu wixii hore lagu heshiiyay oo barnaamij xumeeyay inaan horta hagaajino jawi wanaagsan oo wada shaqayn ah oo wixii aan wada common aan wada leenahay inaan ka wada shaqayno ay waan diyaar baanahay laana maanta waa inagu fooxuma Soomaaliya dadkeena maanta hor jooga in Soomaaliya 5 milyan iyo dheeraad gaajoonayaan oo adduunka aad ogtahay inuu u jeeyo Ukraine oo maanta aan la noo jeedin in dadkeena ay xulufadaas ay maanta dalka qasgaliso Soomaaliya in qasgaliso waa in ka wada tashana si aan uga hortagi lahayn xulufada dibadmeerka ah adduunka beenta ka buuxiyay inaan ka daba tagno ka wada tashana waa diyaar baan u nahay وحلا يرسعبك شهر الأسعانات قراد لو حلاها أنا قاطعت دبل القبي قراد شامع قراد سماعيل بقول ولا خليه يا إنك قراد سليمان أي الله وأروى لي هفي وحق قريبي أو إنك قريبي رجي سوداي دتكي وتي إذا مضى يعنك الصومالي وتي تولدي أقراتي oo inta hore maamul xumo ku sameeyay mudaharaadkii salmiga
haddana cadowgii u soo daysay Soomaaliland ee tiri kaalaya ku tashada oo nagu ku xoog halka ku isku soo urursada laascaanood ayaa inaga qaribay maantana ka daba taga nabadii ciida waxaan jecelahay inuu ka shaqeyno in dadka soo noqdaan oo guriyahooda ku soo noqdaan oo jaamacadii aanu ka qudbadayn jirnay ee Nugaal University iyo jaamacadii dib loo furan doonayna oo quruxdii iyo nabadgelyadii lagu soo celiyo laascaanood taa aan ka wada shaqeynaa oo in iska saarno shisheeya arinta Muuse waa inoo taala hadda cod buu ku soo baxay cod baynu ku ridina haddii codka dhigi waa saan sheegay intaasoo dariiqa jirto inuu hadda aliyad madaxweynaha ku qabsan doono dalkeena waan dib baynu sameyn doonaa distoorkeenu firi doonaa insha Allah taala reform ku sameyn doonaa heshiiska al khaatimo ayaynu boor ka tumi doonaa nolol cusub oo walaalnimo oo ehelnimo ah ayaynu dadkeena u bilaabi doonaa oo institution building nation building baynu sameyn doonaa insha Allah taala marka waxaan leeyahay arinta aynu ka shaqeyno nabadgelyo ka shaqeyno iska saara reer xaafuun reer qardho reer boosaaso majidaland waxa ka soo duulo dhan iska saar ayaan leeyahay aynu dadkeena ka naxno wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh